macallinow inagu haddaan Soomaalina waxaan nidhi quraan lix arrimood baa lagu baran karaa waxaa ka mid aha quraan waxaa lagu baran karaa hooyo qalqaalisa hooyadu hadday ilmaha subaxdii intay diyaariso hooyada la kulanto wayra tira ilmaha subaxdii si fiican u diyaari hooyadu ilmaha subaxdii haddii inta iyadu salaada subax u toosto ay tukato oo si fiican u qureeciso si fiican ugu labisto ay madaxa u soo shanlaysa tiraahdo hooyo khayr allah ku siiyo intay dhunkato orado cashirkii aad nin khayr baa tahay waxbaad ka keeni ana huba macallin fiican baa ku dhiga ay la soo dardaaranto waad garan kartaa ilmaha waxa uu istaagay nisbi kamida moraalkiisi laakiin hadday iyadoo jiifta intay lugta ugu tilmaanto tiraahdo balaaya kugu dhacday meeshii baas baa tagi baa meel lacagtun lagu urursada alla anigu meesha hadda nicdiya barbalorad kitaabkii meelaha ka dayo kitaabna garan mayno orad meelaha ka dayo wararad marun baad wax cuni doontaa ee nadhaaf oo iyadoo lugta ugu tilmaamaysa ay soo saartana ilmahaasi inaanu cashir fahmaynin waad og tahay oo aanu waxba baran karin waxaa la yidhi hooyo qalqaalisa aabba quuris leh maalin walba inta ilmahaaga la soo saaro in la yidhaahdo wararad fiigii la kaalay meeshu dee fii bay ku kala socotaa nadhaaf iyadana waa moraal dil weey aabba quuris leh hooyo qalqaalisa loox qaad weyn waagi hore de loox baan quraanka ku dhigan jiray macallin qaariya walad qayla dheer ya quraanka lagu bartaa baan oran jirnay macallinka qaariga ee codkiisa la maqlo waladka qaylada dheer ee quraanka markuu la ximinayo markaaba qofka dariiqa mariba uu maqlay warkaas suu wuxuu akhriyo muxuu ahaa saaka war macallin kuwa kalaaba ku maqlay war macallin warkaamaad ka qabatid ka saxdid macallinku inuu tahaawun samayn baa la rabaa عجز إنه كم مقام الربا إنه قرآن كلا خلده هي استهانيسن وفضوضيسن بالربا وحيا باصين هرتكم ما هجرنا قرآن كوحوها مهنا أي ندتك كجسو عنه قرآن كوحوها وحدتك الصومالي ذا اللي يقانه وحبرته قرآن كوحوها وحينا وحك لبرن إلى قرآن كبرنه نحن نقول جبينا يا جبر مصرية وهو مسلمة يا سقطيرد وحيكان جرت قرمدا بدوبي كل سجال بقولية تضباطنات كذا يكاهيد تضباطني اللحدي وحي قرطي كتاب ليدا هذا قبلنا وحي لنا الدكتورة زهيرة سكري وحي قرطي كتاب ليدا هذا الإسلام الثوري كعدون كإسلام كعالم ككسمي وحي تري مركان قرمدا بدوبي لا شقينا سقطير كجودها أي آد وحلام مراجعين جريبي تري جميستياشي يا وحي سمايين يسوي وحق جميستين يعني ما كان رأي ربع قرمدا بدوبي هدي له جودها قال هذا عدان ككلية يعني نقول ضب صعد بين نسكنه وحي إيش يجين بيتري إن سبب مدارس بدن أفريقيا كتير يا قرآن الله حري وسببه محن كده هدايا التعليم محن كده هدايا عن مركا دينك كل سنين الله سرام مريي وتدينك الله سيسيي إن أي كم ده هيت فكرة لقاطية وهيت تتكينو جميسناي أو دن سادين هاي إلا تديوجا مسلم كأمويه وردت كمسلم كأمحين سادي أهل شرف النوجو أركلايهن أنين يجا كلي تونا النوجو أركان حتى هذا يكون دونك أقول لي تيهين gabadhaasi waxay tiri waxay yiraahdeen sirta qofka muslimkiinu cimlaaq yahay oo maskaxdiisa mooyo tu kale aanu qaadan karin badiyaba waa quraanka baa leeyahay quraanka waxa ku jira baa la yiri muslimiintu ilmaha waxay baraan isagoo 7 jira ama 9 jira ama 8 jira wax kala baran baa waxa la baraa kitaabay ku jirto 50,000 oo kelmadood oo mufradul kalimaha oo kala macna duwan waa quraanka kariimka weey 50,000 oo kelmadood oo luqawiya ku jirta bay tiri ilmihi marka cimlaaq buu noqonayaa abqari qofaan dadkanba waxba u arag buu noqonayaa maskax ahaan iyo cilmi ahaanba u bislaado naadija gabadhaasi marka waxay sheegtay inay taasi keentay in Azhar ninkii ugu sareeya iyo madaarista Ingiriisku lahaayeen Masar Azhar ninka ugu sareeya iyo madaarista Ingiriisku lahaa ardayga thanawiga dhiganaya inuu ardayga thanawiga dhiganaya ka mushahar sareeyay ninkii Azhar u sareeyay إنجليز أو كلا ساسة ولا دجال من بيت التعليم تودا نلا قيمة يا وحيابها مادجة تنقران كي الدين تنا آد هوس لوجود وعقد هوس ده الجليل لكن واحد الفرنسيسكو أو كلية طلياني يوحي بعد إكسدين مدارس القرآن كذا إن توس لو حدا الله صاحره جبي جذب زهيرة سكري كتاب كذا مركز تاسي كشة المها وحو معنا كل يهاي محي وحو معنا كل يهاي كتاب القرآن كفهم سين تتفهم سيس